وعشرتني xiriirka ahaa ee ku saabsanaa computer basic waxaan ula jeedaa basiga computerka oo ah qof kasta ee computer isticmaalo inuu wax ka ogaado computerka uu isticmaalayo qof IT professional maahan oo IT-ga barto ama wax ka yaqaan laakiin dadka kale ee kulliyadaha kala barto ayaan ugu talagalay cashiradan aan ugu magac daray computer basic oo ah basiga computerka. Okay, cashirkan waxa ugu magac daray ogaaw computerkaaga waxa uu yahay. Ogaaw computerkaaga waxa uu yahay. Just haddii lagu weydiiyo computerkaaga noocee waay, CPU-giisa meeqa waay, RAM-kiisa meeqa waay, hard disk-giisa imise waay, system type-kiisa 32 bit mise 64 bit waay mise 86 bit waay. Intaas baa ku kala baran doonaa iyo computerka qofka markuu soo iibsanayo waxyaabaha uu ka fiirinayo computerka uu ka soo iibsanayo suuqa ayadana waan ku diri doonaa insha Allah taala. Waxaa idila socodsiin doonaa aniga oo ah Muhammad Kaasim Fiidow. Wixii faahfaahin ah waxaad igala soo xiriiri kartaa emailkayga oo ah fiidow1010@gmail.com. Fadlan wax caawimaada fariin waad iigu soo diri kartaa emailkayga. Okay, ila soco marka. Waxaan joognaa desktop-keenii waa basic. Desktop-ka markaad joogtid waxaad kor tagi doontaa computerkaaga this computer ama my computer adiga ku aado. Markaad tagtid icon-ka my computer calaamadan ay ku saaran tahay highlight-ka waxaad dhihi doontaa right click mouse-ka qaybta right-ka ay midigta ayaa ku dhufan doontaa click see. Markaad ku dhufato waxaad kasii dooran doontaa properties oo ah computerkan properties-kiisa mise qaybihiisa ii sheeg. Properties markaad doorato waxaa ku soo bixi doona window-gan aad u jeedid. Waxaad dhihi kartaa aniga computerkayga waa Windows 10 edition-ka uu kasii yahana waa Pro. Computerkayga Windows-kiisa waa 10. Windows computerka ma shaqayn kara hadduusan ku jirin window. Even xitaa computer Windows aan lahayn haddaad daartid wuu kuu soo daarmaa laakiin wuxuu ku leeyahay computerkaaga wax operating system ah ee ku jiro malahan. Operating system-yada way kala duwan yihiin. Just laakiin hadda wax aad loo isticmaalaa Windows-ka waxaa jira Macintosh ayaa jiro, Linux ayaa jiro, waxaa jiro Unix ayaa jiro. Marka operating system-ka ku jiro computerkaaga Windows-ka wuxuu kasoo yahay Windows 10 edition-ka uu kasii yahana waxaa leedahay waa Windows 10 Pro. Okay, system computerkaaga ku jira marka noocee systemka computerkaaga ku jiro Windows-ka ma ahan. Systemka computerka waxaa loola jeedaa computerka isaga laf ahaantiisa window-ga ku jiro ama yuusan ku jirin. Systemka computerkaaga wuxuu yahay CPU qalabka ku jira waa macnaha system waa maxay systemka design computerkaaga waay. Okay, CPU-ga ku jiro computerkaaga waxa waaye waxa iskale shirkadda AMD Intel ma ahan shirkadaha soo saara inta badan chips-yada ama computerka qalabkiisa laba ayaa loo kala qaadaa inta badan AMD iyo Intel inuu yahay. Waxaad dhihi doontaa aniga waxaa soo sameeyay CPU-ga shirkadda lagu magacaabo AMD xawaarihiisana 1.8 GHz ama 1800 HZ. CPU-ga waa computerka wax kala wado. CPU processor iyo CPU isku magac waay. CPU waxaa laga soo gaabiyaa Central Processing Unit oo ah Central Processing Unit oo ah processka ama shaqada wax kala wado ayaa waxa lagu magacaabaa CPU. CPU-ga waa maskaxda computerka oo leeyahay. Computerka hadduu ka kululaanaa ama hot noqonaa CPU-ga ayaa laga haystaa. CPU-ga waxaa ku jirto marwaxado qaboojiyo CPU-ga waxaa lagu magacaabaa fan cooler. CPU-ga waxaa saaran marwaxad lagu magacaabo fan cooler. Fankaas ama marwaxadaas cooler macnaha waa marwaxad qaboojiyo. Fan cooler-kaas waxay qaboojin doontaa CPU-ga. CPU-ga computerka hadduu kululaahana waxaa laga haystaa CPU-ga
fankularka kor saaran ayaa laga haystaa. CPU-ga wuxuu kaloo kaa saacidin doonaa markaad kombiyuutarkaada aad soo kicisid haddaad culeys ku aragtid ama wareeg cabaar inuu wareegsanayo CPU-gaaga aad buu u yaryahay. CPU-ga waxaa loo kala qaadaa Core i2, Core i3, Core i5, Core i7. just kombiyuutarkayga Core i2 waay 1.8 gigahertz ama 1800 hertz ka dhiga macnaha gigahertz markaan ka dhigo hertz 18 baa wax ku dhufan doonaa 1000 waxay noqon doontaa 1800 hertz waa 1800 hertz waxaa lagu yaqaanaa Core i2 inuu yahay. Core i2 waa kan ugu yar kombiyuutarada. Core i3 ayaa jira oo asaga kasii weyn waxbaarihiisa kan ka fiican waxaa jira Core i5 kaba sii daran iyo Core i7 waa kombiyuutarkii ugu dambeeyay inuu yahay ayaan u maleyna. Kombiyuutarkaas waa very speed computer xawaarihiisa aad buu u sareeyaa. hadiskiisa 1 terabyte waay mararka qaar sidoo kalena isaga markaad power on kombiyuutarka aad soo daarto isla markiiba wuxuu ku keeni doonaa kombiyuutarkaaga screenka password gelinaysa automatic desktopki waa 1 click isi culays iyo wareeg markuu arkaysid Core i7 haddii uu yahay. Okay, waxaan tegi doonaa installed memory oo ah RAM-ka waxaa lagu magacaabaa random access memory. waxaa lagu talagalay in uu haayo kombiyuutarkaaga temporary storage macnaha waa storage ku meel gaara. just aniga hadda waxa ii daaran wide kan ii daaran meesha lagu haayo waxa lagu magacaabaa waa RAM-ka ma ahan storage ama hard drive-ka ma ahan. just intuu daaran yahay wide-kan fiber-kan intuu kacsan yahay notepad-kan intuu u kacsan yahay dhammaantood waxaa haayo RAM-ka ayaa ku haya. RAM-ka haddii uu yar yahana iyadana culays baad kala kulmi doontaa in ay waxan ay sii shaqeeyaan. Okay, marka system type oo ah systemka nooca uu yahay systemka kombiyuutarkaaga nooca waa 64 bit operating system ayaa ku jiro oo basic 64 processor mise waa 32 bit. system type-ka waxaa waaye systemka kombiyuutarkaaga qaabka uu u dhisan yahay 64 bit operating system ah miyaa loogu talagalay mise waxaa loogu talagalay operating system 32 bit ah mise waxaa loogu talagalay operating system 86 operating system. Operating system-ka lagu sheegayana waa Windows-kan. Windows-ka isaga wax u qaybsamaa laba qaybood inuu yahay 32 bit inuu yahay 64 bit ama inuu yahay 86 bit. haddii marka system type-kaada uu yahay 64 bit operating system waxa ku fiican in kombiyuutarkaada aad ku shubatid Windows 10 ah 64 bit. haddii uu yahay 32 bitna waxaa ku fiican inaad ku shubato Windows 10 Pro 32 bit. haddii uu yahay 86 bit operating system waxaa fiican inaad ku shubato Windows 10 86 bit. Okay, computer name-kaaga waa kana full computer name-kaaga waa kaasa activation miyaa mise ma aha meeshaan ila fiiri. activation waxaa loola jeedaa productive key waa macnaha software-kan ama Windows-kan wuxuu leeyahay dad baa soo sameeyay Microsoft ayaa soo sameysay oo leeyahay ninka lagu magacaabo Bill Gates nin millionaire hantiilo marka software-ka marka la soo saaro suuqa ayaa la soo geliyaa ninka soo sameeyay iyo shirkadda soo sameysay waxay ka rabtaa inay lacag ka hesho laakiin Soomaali haddii aan nahay waan iska helnaa without charge lacag la'aan anagoo charge bixinin oo aan wax lacaga ku bixinin ayaan helnaa waa copy. laakiin adduunka waxaa laga iibiyaa lacag dhan $100 iyo $200 iyo ka badan ayaa Windows 10 kala iibiyaa kaligiis. haddii uu ka halaabo guarantee waxaad ka haysataa Microsoft ayaad ka haysataa. hadduu corrupt macnaha uu kaga dhaco waxaa ku hagaajinayso
Microsoft ayaa ku hagaajinayso wixii damaanad qaada iyada ayaa iskale. Sidoo kale Windows 10ka leh activation code-ka oo very secure securitygiisa aad buu u adag yahay, laakiin annaka waxa naga dhammaan waa copy. Waxaa keenayo in computerkii oo virus ku dhaco, computerka oo iska halaabo. Ma haysano software ama Windows mid sharciyeysan oo license-giisu saxan yahay. Marka computerkaaga Windowskaaga waxaad ogaan kartaa inuu yahay mid activation leh oo security code-kiisa wato inuu yahay. Bartaan baa ku ogaan kartaa. Haddaad ku aragtid Windows is activated, just Windowskaaga waa fiican yahay, waa very secure waaye. Mararka qaar waxaad arki doontaa Windows is not activated, Windowskaaga activation ma ahan, just waxaa loo baahan yahay inaad soo gelisid product key-ga, inaad soo gelisid ama aad soo raadisid. Haddii Windowskaada uusan ku ahayn product key-giisa mid saxan ama activation-kiisa mid active uusan ku ahayn, aadana haysanin activation code ama product key-ga, fadlan waxaad aadaa YouTube-ka, waxaad dhihi kartaa ii sheeg Windows 10 Pro product key-ga, automatic halkaas ayaad ka heli doontaa. Waxaan kusii diri doonaa cashir aad u gaaban oo isagana sidee baan computerka markaan iibsanayo maxaan ku doortaa. Computer markaan iibsanayo aan suuqa tago, computerna aan soo iibsanaya, maxaan ku dooranaa. Waxaad ku dooran doontaa qeybahan kala duwan. CPU computerkiisa imise waa, Core i2 miya, Core i3 miya, Core i5 miya, Core i7 miya. Okay, CPU-giisa iska fiiri computerkaas aad soo gadanayso. Waxaad kaloo iska fiirin doontaa RAM-kiisa imise waa, 4GB ayuu kasoo bilowdaa, 6GB ilaa 8GB iyo kasii badan ayaa arki kartaa. Okay, system type-ka computerka imise waa ina dhahdo, 64-bit miya, 86-bit miya, 32-bit miya. Waxaa fiican inuu yahay 64-bit operating system inuu yahay. Okay, waxaan rabaa inaan ogaado computerkan hard disk-giisa ama hard drive qaadkiisa, daatada oo qaadi kara imise GB waa, daatada oo qaadi karo aan ku shuban karo imise GB waa. Waxaad ka ogaan kartaa inaad tagtid this computer aad aadid click, markaad soo furto ay ku soo baxdo qaanadan. Just aniga computerkayga waa 154GB lagu daray 198 lagu daray 112, ku dhawaad waa 500 oo GB ah. Ku dhawaad waxaad isku darsan doontaa intaan partition-kan 3 partition waa 2 partition, 2 partition, 3 partition. 3daas partition isku darkooda ayaa wuxuu yahay hard drive-kaada ama HDD hard disk-ka computerka ku jiro. Aniga computerkayga hard disk-kiisa ku dhawaad waa 500 oo GB. Fadlan iska fiiri computer aad soo iibsanaysid hard disk-kiisa inta uu yahay, 500 oo GB miya, 200 oo GB miya, 300 oo GB miya, 400 oo GB miya, 1 terabyte GB miya. Insha Allah tacaala cashirkeena intaas ayaan kusoo koobi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.